kulanti wacan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan munaasabad ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah qowmiyadaha dega dalka Ethiopia iyadoo lagu qabtay magaalada Melbourne ee gobolkan Victoria ee qaaradda Australia. haddaba munaasabadan ayaa waxay ahayd mid ay ka soo qayb galeen dhammaan jaaliyadaha dega dalka Ethiopia iyadoo munaasabadan ay soo qaban qaabisay jaaliyadda dawlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia. munaasabadan oo lagu casuumay danjiraha cusub ee dawladda Ethiopia u fadhiya dalkan Australia ayaa markii ugu horeysay kala qayb galay qowmiyadaha dega dalka Ethiopia. haddaba munaasabada ayaa inteeda badan waxay ahayd soo bandhigid dhaqamada kala duwan ay jaaliyaduhu ay leeyihiin amaba qowmiyadaha shucuubta degta dalka Ethiopia. ugu horeyn waxaa halkaasi ciyaar dhaqameed ku soo bandhigay jaaliyadda dawlad deegaanka Soomaalida dalka Ethiopia. waxaan marka koowaad u mahad celinayaa
safiirka u fadhiya dowladda Itoobiya dalka Australia ato Aregu Hailu Tafarra waxaan u mahadcelinayaa minister consular u fadhiya safaaradda Itoobiya ato Nagaza waxaan u mahadcelinayaa konsulka dalka Itoobiya u fadhiya magaalada Melbourne Master Graham Romas waxaan u mahadcelinayaa konsulka u fadhiya dowladda Soomaaliya magaalada Melbourne waxaan u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha iyo horjoogayaasha dhammaan jaaliyadaha dalka Itoobiya ee ku sugan caawa xalfadan waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadka ka soo qaybgalay ee ka yimid gobollada fogfog sida Sydney sida Western Australia Perth iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha bulshada ee caawa inagu ku sugan hoolkan aan xalfadda ku hayno waxaan dhammaan u mahadcelinayaa shakhsiyaadkii iyo shirkadihii naga caawiyey xalfaddan sida quruxda badan caawa aan ugu dabaaldegayno hiddaar hayaasadayn kuwaasoo kale ah xawilaadda mustaqbal xawilaadda kaah xawilaadda star habban family daycare Labala family daycare Bishara family daycare Zamzam family daycare Best family daycare Children First family daycare Federation family daycare Choice family daycare Awesome taxi club Basha legal lawyer and consultancy Stern legal lawyer and consultancy iyo dhammaan guddidii ka qayb qaadatay in ay xalfadan caawa sida quruxda badan inoogu dhacdo dhammaan waxaan idin leeyahay anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca guddida qabanqaabada ee xalfadda soo qabanqaabisay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad ka soo qaybgasheen waxaan idinku soo dhawaynayaa caawa oy tahay habeen aad iyo aad u qiimo badan oon u dabaaldegayno xuska maalinta qowmiyadaha iyo shucuubta Itoobiya oo loogana dabaaldegayo dalka Itoobiya gaar ahaan xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jijjiga ayaa waxaan leeyahay untaan darsaynaan ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadashay gudoomiyaha qabanqaabada isla markaana ah gudoomiyaha dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya Marwa Khayr Dalmar waxana ay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay in dowlad deegaanka Soomaalidu ay sanadkan hantaan in ay qabtaan munaasabadda qowmiyadaha isla markaana lagu qabtay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya caasimadda Jigjiga Khayr ayaa hadaladeeda waxa kamid ahaa أنا قدوميها قبل قابضة حفلة هي قدوميها Somali Ethiopia community googa ee dalkan Australia waxaan marka hore idinku soo dhaweynayaa gacmo furan waxaan idin leeyahay xafladan aad iyo aad u qiimaha badan ee aad iyo aad u ballaaran aan muddo soo diyaarinaynay caawa sida qurxan noogu dhacaysa مسؤولك سراء محوها قنصلك سفارة إثيوبيا هل كان نوجوغا مستر جرام دكتور برهان قنصلك الصومالي دلك الصومالية مستر يونس حاشي دمان وفود دان إيميش نوغوتي مدى حفلة دان دات كان نوغي مدى مغالوين كفوق فوق قيمية حفلة دان ونوغي مدى ويست أستراليا مغالوين بيرث dalkaas aad u fog diyaaradaha noo soo qaatay dadka Sydney nooga yimid inay nagala qayb galaan xafladan dhammaan shacabka reer Melbourne community-da Ethiopia Tigray community Afar community Harar community Amhara community all Ethiopian communities oo maanta halkan noogu yimid ونلا حفلة دينية أدبا يقولوا هم هنسيهين دمان تودبا وحكلوا عن هل كان مهدنا وجدينيا قبله شرفت لها ديجان كودا شيء حفلة داني لسوق بنقابية هبين يدرار
إلى حديري حولها إلى وذي أيوة هو يوينا وقت جوجا قالي أيه رأي وحفلة دانسية يسفي عن أيوه هرجشة أيجنا ددال حول يموجي أد بيجون أقوم هالسنين دمان مرتدى شرفت على والدي صور دوينيا وح مناسبات الحس كذا مالنتا قوميتها إثيوبيا وسنة كيبا مر لغو حسو دلك يدبدا أيا سنة كان وح نصيب وين ويا شيء deegaan keena Soomaalida Itoobiya magaaladeena caasimadda Jigjiga in lagu qabto ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan shacabkeena deegaanka aan si fiican ula farxadaas ula qaybsano annaguna aan u muujino taageero inaan maadaragta taatu lamida qoomiyadaha iyo dhaqanadooda kala duwan aan halkaan ku soo babadhigno aan dadkii isku keenno aan muujino wanaagga ka dhacaya dalkeenii iyo magaaladeena Jigjiga وناجا كذا عيا طول مذا إن هالكان نقولنا عن كسمينا وأنا حفلة وجوه الرئيسي وحفلة المذا قومية لها إثيوبيا أي كسميان أدبان فرح سنة هاي تغير هذا إيه وناجا أي نجابو أي موجين دست كوميونيتي إثيوبيا هالكان كنول مركب واحد همبليا يبغادين ودرينا أنا كهذايا جديدة قابستا حفلة نسكسو دبردي يو أنا وقدوميها جالية إثيوبيا صومالي إثيوبيان وحن أدريا همبليو يبغادين شعب كنا ديجان كذلك صومالي إثيوبيا هي دولة نحجة هي دولة إثيوبيا أردن فرحة ما أنت دقمة قال دودوان أي ماشان أي لو سمعنا يوم. It's a great honor to speak before our whole community. I want to acknowledge our new ambassador, Ambassador Ariga. It is a great thrill that we have finally opened an embassy in Canberra, and this will be a great strengthening of the relationship between Australia and Ethiopia in this new venture in Canberra. I also want to welcome Ato Nagash, our Minister Councillor, who has come and who will be actively involved in working with our communities around Australia. Tonight is a very special night because it represents a very important part of our coming of age as an Ethiopian community here in Australia. We have been divided for a long time. We have not met together in this way ever before. And it is a great thrill that we have come together tonight. I see this as a culmination of my own time of working for Ethiopia over the last 17 years. Multicultural of Ethiopian people, nation and nationality, we need to show the rise of Somali nation. Thank you very much, Mr. Graham. We have a surprise for Mr. Graham, a Somali culture. Here we go! Mr. Graham is now from Jigjiga. Oh, please put your hands together. Put your hands together. Don't mention Chala. Okay, we're gonna ask the audience, what do you think? Thank you, Mr. Graham. He has been serving our nation for so many years. He deserves more than this gift. Please put your hands together again and again. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan marti sharafta magaaladan Melbourne ka ugu horeeyo ambassadorka cusub
iyo qusulka iyo dhammaan mas'uuliyiinta kale ee meesha fadhida aan magacooda halkan ku soo koobi karin dadweynaha sharafta leh jaaliyadaha kala duwan ee qowmiyadaha kala duwan ee Itoobiya ayaan halkan ka salaamayaa anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda West Australia ee Soomaalida Itoobiya salaan kadib run ahaantii hadal badan meeshan wax badan oo wanaagsan ayaa la hortay la hadlay marka waxa hadhay baaba iska yar markii aad fiiriso dadkii hadlay ee faraha badnaa marka aniga iyo saaxiibadaydii ila socday ee ka yimid West Australia waan idin salaamaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadweynaha meesha ka soo qayb galay iyo mas'uuliyiinta meesha fadhiya waxay ila tahay hadalka intiisii quruxda badnayd horay baa loo yidhi waxaa la yidhi mataqaanaa hadal nin yareeyeyna kama wada tegin nin badiyeyna ma wada odhan marka mar walba waxbaa dhimanaanaya sidaa darteed waxaan odhan lahaa qowmiyadaha Itoobiya halkan ku kulmay iyo mas'uuliyiinta meesha fadhiyaba dawlad fiican waxay ka timaadaa dad fiican dadka fiican ayaa mas'uul fiican doorta mas'uulka fiicanna wuxuu sameeyaa wax fiican waxa fiicanna waa cadaaladda run ahaantii cadaaladdu ibni aadanka oo dhan baa u baahan waxayna ka soo bilaabataa gurigaaga iyo shakhsi walbaba gurigaaga iyo cadaaladdu ka soo bilaabataa waxayna ku dhammaataa ruuxa ugu sarreeya oo ay mar walba mas'uuliyadda inteeda badan ku dhacdo marka waxaan odhan lahaa qowmiyadaha meesha fadhiya iyo mas'uuliyiinta kala duwan oo ugu horreeya ambassadorku waa in la isu cadaalad falaa oo ruux walba ruuxa kale xaqiisa uu isagu leeyahay uu ku ixtiraamo oo la wada shaqeeyo isla markaana wax wanaagsan la wada qabto haddii ruuxa mas'uulka aan lala shaqaynin wax ma qaban karo aad buu mahadsan yahay bas haddana waxaan u yeerahayaa xasan cabdi faarax oo ka yimid magaalada Jijjiga oo talmada kooban inoo soo jeedinaya xasan cabdi faarax waxaa farxad weyn oo ah caawa in qowmiyadaha Itoobiya oo dhan markii ugu horeysay ay magaalada Melbourne isugu yimaadaan ayadoo Soomaalida ay qiimo gaar ah u leedahay Soomaalida kiilka shanaad ay qiimo gaar ah u leedahay xafladanu taasoo ahayd munaasabad wareegta ah oo kililada dhan soo martay xafladan waxay saldhig u tahay guulihii iyo halgankii dheeraa ee xisbiga EPRDF uu soo galay taasoo ka turjumaysa sinaanta iyo midnimada Itoobiya anagoo xafladan qiimeynaya waxaan hambalyo u dirahayaa madaxda kiilka shanaad oo hormuud u yahay madaxweynaha cabdi iyo kabineedkiisa odayaasha hawsha adag ee ay u qabteen ummadda Soomaaliyeed ee kiilka shanaad ah iyo dadaalka badan ee ay muujiyeen waayo waxaan xogogaal u ahay hawshan caawa inagu halkan u joogno inay muddo dheer 3 bilood 4 bilood kiilka shanaad iyo madaxdiisu ay ku hawlanaayeen maantana aan rajaynayno caawa inay ayagu berri guul ugu soo dhamaato guul baan rajaynayaa waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum aad buu mahadsan yahay siyaasi xasan cabdi faarax oo dowlad deegaanka Soomaalida ka yimid oo magaalada Jijjiga haddana waxaan ku soo dhaweynayaa qaybtii muusikada waxaan uga baxaynaa garoonka kooxaha heesaha weydinka dhanka kalena waxaa hadal dheer halkaasi ka jeediyay danjiraha cusub ee dowladda Itoobiya u fadhiya dalkan Australia isagoo aad ugu amaanay jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida in horumar la taaban karo ay ka gaareen dhanka waxbarashada dhanka amniga iyo waliba dhanka horumarka dhaqaalaha የተከበራችሁ ከዚያች ውብ ሀገር የወጣችሁ ውብ ባህል ያላችሁ ውብ ህዝቦች ኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች የተከበራችሁ
እንግዶቻችን በሙሉ ክቡራትና ክቡራን በመጀመሪያ ሁላችንም በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ሪፐብሊክ መንግስት እና በኤምባሲያችን ስም እንኳን ለ8ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ይህንን ቀን ስናከብር እዚህ ላደረሱንና በህይወት ለሌሉ ለታላቁ መሪያችን ለክቡር አቶ መለስ ዜናዊና በትግል ለተሰዉ ሁሉ እንዲሁም አፓርታይድን ሲታገሉና ታግለውም አሸንፈው ይህንን በዓል ለመጀመሪያ ጊዜ በሜልቦርን አውስትራሊያ ለማክበር በሶማሊያ ኮሚኒቲ አስተባባሪነት ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አባላት እንዲሁም ስፖንሰሮች በማተባበር በማዘጋጀታችሁ እኛንም በዚህ በዓል ላይ እንድንገኝ ስለጋበዛችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። sidoo kalena waxa halkaasi abaalmarin uu ku guddoonsiiyay qonsulka guud ee dawladda Ethiopia u fadhiya dalkan Australia waxaana sidoo kale abaalmarin kale uu guddoonsiiyay gudoomiyaha dawladda deegaanka Soomaalida dalka Ethiopia Marwa Umul Khayr Dalmar. This is the castle of which castle is it? Thank you. ከዚህ በመቀጠል ይህን በዓል ላዘጋጃችሁት ብሔር ብሔረሰቦች ታይ አመሰግናለሁ። wait for you also. aad baan ugu mahadnaqaynaa safiirka khudbadda inoo soo jeediyay waxaan u yeerayaa I would like to present a little Somali culture which represents Ethiopia as well to Mr. Embassy. አምባሳደር አረጋ ኃይሉ እናከብርሃለን እናፈቅርሃለን። እኛም ውስጣችንን መምጣት በጣም ደስ ብሎናል። What do you think? Welcome to Chaba. waxaan ku dhex suganahay howlka munaasabaddu ay ka socoto dabcan waxaan halkan isugu yimid dhammaan jaaliyadaha ama qowmiyadaha wadadega dalka Ethiopia iyadoo Soomaaliduna ay hormuud u tahay munaasabadan waxaana kala soo qayb galay danjiraha cusub ee dawladda Ethiopia u fadhiya dalkan Australia waana markii ugu horeysay ay danjiro u soo magacaawdo dawladda Ethiopia dalkan Australia sabcan munaasabadan waxay noqonaysaa midii ugu horeysay ee jaaliyadaha wadadega dalka Ethiopia ay ku qabtaan magaalada Melbourne. sidoo kale jaaliyadaha kale sida Tigreega, Anfarta, Amxaarada, Hararka iyo waliba jaaliyadaha kale ayaa iyana halkaasi waxay ku soo bandhigeen dhaqamada ay leeyihiin iyo waliba ciyaaraha hidaha ee dhaqanka u ah qowmiyadaasi.
منار سلم عشلي ولا أرود ببلد عشلي ولا لا يتلذذ ولا تمتد عشلي ولا فتية بلد عشلي ولا عشلي ولا ثمانية عشلي ولا ugu dambeynna waxaa ii suurta gashay inaan mikrofoonka la dhex miro qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadda waxaana aan weydiiyey dareenkooda ku aadan kulankan ama isu imaatinkan halkan ka dhacay. magacayga waxaa la dhahaa Cabdullaahi Xasan Xirsi waxaan ka imid galbeedka Australia waxaan u nimid xafladda ka dhacaysa Melbourne Victoria afar nin baanu hadda ku soconay waftidaa ku ahayn aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo shirka ka dhacay Melbourne ee xafladda shucuubta Ethiopia ay mataqaana ku kulmayaan waxaan salaamayaa anoo kaga faa'iideysanaya fursadan qaaliga Umar Baafo iga qaadayo waxaan salaamayaa jaaliyadda dawladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia oo madaxweyne Cabdi Maxamed Umar uu horeeyo waxaan leeyahay guuleysta haddaan idinka imid horumar baad gaadheen waxaan leeyahay sii wada إن شاء الله ونقولنا هالكنا نكسي ودنا إلا إنه ماشي أين ربنا كجارنا نعديها كده الله منا هذه آد بعد ما سنتي اللي كم هالعلنا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد وحل إلى حسن الله هذا وحن كيمد يوسف والس سني شريعة الصومالية الإثيوبية هالكنا دقن وحنا هاي منتج هذا دولية هذا ururkan aan hadda joognay halkan dowladda Kenya ma ka hay ururka jaariyada Soomaalida Ethiopia ee Australia waxaan aad ugu faraxsanahay oo caawa aan dhex joogaa qowmiyadii Ethiopia oo wada halkan kooda ciyaaraya idood iyo dhaqankoodii muujiyay isku kalsooni iyo nabadgelyo iyo farxad jaariyadaha qowmiyadda Ethiopia ee ku nool Australia oo meel isugu yimid ambassadorkoodii soo dhaweynaya. Assalaamu calaykum waxaan halkan ka salaamayaa Soomaalida kinilka shanaad oo guuriyo waxaan halkan ka salaamayaa Cabdow Noole cadawga hajabo Cabdow Noole cadawga hajabo waa Faadimo Shaafici hambalyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مقعيكم حبيب عبد العلمي وحنا هذا أقول فرح سنة هاي حسكن آد كوقيمها بدن لما قع بحي حسك قوميتها إثيوبيا أي مرتق لسي دولة ديجان كنا صومالية إثيوبيا حنا هذا أقول فرح سنة هاي شقدا ونعكسن iyo waxa weeye maamulka wanaagsan ee meesha ka dhacay caawa sidoo kale waxaan jeclahay inaan kaga faa'iideysto caawa halkan inaan salaan aad u qiimo badan aan halkan uga gudbiyo madaxweynaha sharafta badan ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamed Umar oo anagu u aqaano Cabdi Cadde ama Cabdi soo baxay waxa weeye waa nin aad u wanaagsan marka waxaan leeyahay dhammaan مسؤوليته كلا دوات أكواسة سيادنا وسلام هيا. مقعيك واحد إلى موسى عبد الله عثمان وحن كيمين مقالة السدني وحن أمد حفلة ما نتعاون ماشى اللي سوي مدة اللي قصور وين هيو أرمها قومية لها وصمت كان لقول قبتي دولة دجان كصومالية إثيوبيا قلت وحفلة وقرح بدن وقت بدن بانو قليني أول بدن بانو كقبلني عاون أو جد واحد ماشى كذا
waa markii labaad oo yacni qowmadaha Itoobiya ay sidan oo kale isugu yimaadaan albaabka marka hore wuu naga xirnaa waxaa albaabka inoo furay madaxiisa Allah raajiyo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo bishii June 2012 markuu halka yimid aanu shir qowmadaha Itoobiya oo dhan aan isugu nimid kana waa kii labaad waxaan rajaynaynaa inuu sidan oo kale u sii socdo waa mahadsantihiin khayr baa idin rajaynaya assalaamu calaykum halkan waxaa sharaf iyo mudnaan nooga mudan annagoo ka soo qayb galnay xafladda caawa lagu xuseeyo sanad guuradii koowaad ee magaalada Melbourne oo loogu dabaaldegayo gobolka Jigjiga Itoobiya aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sida sharafta leh ee ugu soo wada qayb galeen waan ku mahadsantihiin dhammaantiin bismillaahi raxmaani raxiim magacayda waa Faysal Ibrahim Cabdi waxaan ka mid ahay guddiga qabanqaabada ee hawshan caawa xalfadda maalinta qowmiyadaha iyo shucuubta dalka Itoobiya ee magaalada Melbourne aan ku qabanayno guddida soo qabanqaabisay baan ka mid ahay hawshan aan aad ugu faraxsanahay inaan maaragtay caawa ay noogu dhacdo sidan quruxda badan aadka u weyn oo ah si maaragtay dhammaan dadkii xalfadda ka soo qayb galay caawa aad iyo aad ay ugu riyaaqeen oo aad ugu farxeen waxaan wallahi aanan u filaynin in ay sida caawa ay xalfadda noogu qabsootay maanan islahayn heerkaasay gaaraysaa marka aad baan ilaahay ugu xamdiyaa in xalfaddan caawa ay noo noqotay xalfad aad iyo aad u qiimo badan oo aad iyo aad u fiican qabanqaabadeedina aanu ku soo jirnay muddo ilaa 2 bilood ah oo aanu aad ugu dadaalnay inaanu caawa xalfadda ay noo noqoto sidan marka waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan dadka ka qayb qaatay in xalfaddani ay caawa dhaqan gasho oo sidaa quruxda badan ay u qabsoonto khaasatan waxaan u mahadcelinayaa dadkii na isboonsaray dhaqaalahooda na siiyey nagu garab istaagay inay xalfaddani caawa ay noo qabsoonto sida family daycareyada sida xawilaadaha sida kambaniyada iyo dadka sida shakhsiyan noo maaragtay noo siiyey lacagaha si aanu xalfaddan ay u noqoto mid aad u qurux badan marka aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa khaasatan waxaan u mahadnaqayaa TV-ga Universal oo xalfaddan caawa nagala soo qayb qaatay wariye baafo oo nala jooga aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa TV-ga Universal waxaana leeyahay maalinteeda ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo waxaan rajaynayaa xalfaddan caawa aan ugu dabaaldegayno magaalada Melbourne iyadana in loogu dabaaldegayo magaalada Jigjiga iyo dhammaan daafaha caalamka oo dhan marka waxaan leeyahay dhammaan dadka Itoobiya shucuubaha kala duwan qowmiyadaha kala duwan waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad baan idinku mahadcelinayaa anigoo ah Ibrahim Aadan Cusmaan oo ku hadlaya jaaliyadda Melbourne ahaana guddigii soo qabanqaabiyey in loo dabaaldego Hidaar 29 waxaanu leeyahay walaalaha Itoobiya dhammaan ku iidaya magaalada Jigjiga ayaanu leeyahay waxaanu hambalyo baanu leenahay annaguna waanu iidnay already qowmiyadkii oo dhan way ka soo qayb galeen wax walbana ma garanaysaa oo farxada Itoobiya ma meesha ku faraxsan ma aha qowmiyad gooniya oo Itoobiya muusiqeedii baad maqlaysaa hadda muusiqa socdaa waa qowmiyad kamid bismillaahi raxmaani raxiim anagoo magacayga yahay Cabdiqaadir Khaliif Muuse Washington anoo magaca Kismaayo restaurant ku hadlayo caawa waxaa mahad noo ah inaan siino maqaayadda Kismaayo restaurant hospitality magaalada Melbourne oo lagu qabtay qowmiyadaha Itoobiya dego oo caawa maasha Allah waxaa ka dhacay wax wacdaro weyn saa u joodiinba mataqaanaa aad iyo aad baa mataqaanaa caawa u faraxsanaa caawa service fiican baan u sameynay dadka meeshii dumarka quruxda badan waa arkaysay maasha Allah ya Kismaayo restaurant as well hospitality fiican baan u sameynay aad iyo aad baa caawa mataqaanaa loo faraxsan yahay mahadna waxaan ilaah baa mahad leh Soomaaliya ay isu timaado ay hal mid noqoto baa insha Allah ilaahay ugu rajaynayaa Obrigado por você, amor,
barnaamijkii gaarka ahaa intaas ayaan jeclaa inaan kusoo afmeero waxaan idinla socodsiinaya anigoo Ibrahim Cumar Baafetan iyo kulanti dambe xagga farsamada waa saaxiibkay Abuukar Mahdi oo jooga magaalada London kaameradana waa Saciid Washington